kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka Doolo hogaaminta degmooyinka isku duwaha waxbarashada ee gobolka Doolo ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada sanadkan 2016 si loo helo jil aqoon ku hubaysan. shirkan oo uu furay gudoomiyaha gobolka Doolo Mudane Mubaarak Axmed ayaa hogaaminta degmooyinka kula dardaarmay in la sii dhaadhiciyo qorshahan wax looga bedelayo tayada waxbarashada ee sanadka 2016. sidoo kale isku duwaha waxbarashada ee gobolka Doolo Marwa Khadra Daahir ayaa sheegtay in loo baahan yahay in awoodda la isugu geeyo tayeynta waxbarashada si loo kobciyo maskaxda jiilka cusub ee mustaqbalka. qof kasta waxa gurigiisa ku nool min madaxweyne ilaa ka ugu hooseeya qabalaha degan dad u kala dugsiyada ama jaamacadaha u kala dadkaas marka natiijada waxbarashadooda si fiican baan u garanaynaa. qofkan garanayna waxa tusaale ah sanadkii dhaweyto 12aadkii iyo 8aadkii iyo wixii la midka natiijadii ka soo baxday ma cid baa isku inkirsan gobolkan maxaa ka baasay ahayd marka resourcigii iyo hantidii iyo waqtigii iyo dadaalkii la geliyay waxay ka dhigan tahay khasaaro aha Soomaa. okay sanadkii hore halkaas oo ahaa sanadkan hadda dhamaaday imtixaankiisii la galay maxaan rajaynaynaa macallinkii wax badan inaan laga bedelin baa laga yaabaa manhajkii ardaygii halkan madaxfiisada waxbarashada iyo hadda gudoomiyaashii way wada fadhiyaan de kulli dugsiyada waynu booqanaynay idina waad booqataan waad ka wareysaan wax kasta fiiri waxa la geliyo buu qiimihiisa leeyahay baa la dhahaa war ardaygan 12aadka dadkan u dhigayay haddii ay natiijo ka iman weydo waa in la qiimeeyo ma macallinka sababtu ma manhajka ma wax kala ma dhibaato haysata dugsiga saroon kormeer ku sameeynay macallimiintii waxay ninkii wax dhigi lahaa wuxuu leeyahay ani ardaygii lamaba hadli karaba ma ciqaabi karo markuu rabo imani oo imtixaankiisa ma waxayn karo oo ma ridi karo kuwii 11aad iyo 10aadkii soo in la xisaabto uma baahna 7aad iyo 6aad ma ridi karo kulay uu dilayaa suuqaas uu taagan yahay marka lafiisu badbaadinayaa de niman yahay waxa soo dhan marka maxay u baahan tahay in gashi aan gelinay u baahan tahay gashigaasu waxna degmada karaysa wax gobolka karaya wax deegaanka wax dalka marka jiil cusub in la soo saaro saasa horta in loogu baahda keentay waxbarashada jiilka cusub macnaheedu waxa weeyaan jiilkii hore failure inuu khasaaray ayaa muuqata sababtoo waxaad arkaysaa nin degree wata oo wallahi ku dhufta ka shaqeyn karin oo kula dara physics iyo xisaabiyaan soo bartay soo ma badna aad buu badan yahay marka jiilkan inaynu wax ka bedelo sanadka labaad bedel badan ma inaan sameeyno sanadka marka inaan diyaar garow sameeyno bahwadaagta in la abaabulo kormeerka inaan badino macallimiinta inaan kala saaro bal dad voluntary inay meeshii gali karaan inaan ku caawino war xitaa haddii hadda ardayda la abaabulo hadda fursadaha la haysto ayna haysanin waagi hore waxa kamid ahaa library baa la aadi jiray waxba xaggan la aadi jiray dadaal baa la sameyn jiray hadda mobile-kan any google kaas markaad ku qorto maada kasta iyadoo af kasta lagu sharxay kii English yaqaan kii Carabi yaqaan kii Soomaali yaqaan baa laga helayaa Soomaa ardayda kaliya hadaan ku baraarujino war mobile-ka kaliya wax ka barta oo galaasya looga sameeyo oo halka hadii muraayad weyn loogu xiri karana loogu talaalo ilaan mobile iyo muraayadaha isku xidmeeya jira Soomaa oo bluetooth isku xirmaana ma si kala fiilaha lagu xiriiriyo yani macallinka halkan uu ku jira kii xumaa iyo kii fiicnaaba bal inaan gashi gelino marka bahwadaagteeni oo markii la tago daafurkana degmooyinka in laga sameeyo loo baahan yahay maanta aynu sameeynayno kale hadii alla idma gashiga aynu gelinaynana waxa ugu horeynaya in bal horta baraha in la diyaariyo anisaanu arko weey waxa kale oo dhan kuraasta waxun baa laga sameeyaa dhismaha waxun baa laga sameeyaa sabuuradaha badana ama jeestaha la helo ama wax kale la helo wax badan baa laga sameeyaa Soomaa laakiin baraha weeyaan sababtoo asalku waa macallinka aqoonta uu leeyahay inuu ardaygu gala Soomaa horta bal macallin aqoontii la intaan sidaan ku heli lahayn regular or irregular directly or indirectly suuqa aan ka keeno aan inagu is abaabulo galaasyada aynu waxun ka galo kuwa kale aan ma garanaysaa allowance u sameeyno horta macallin inaan helno wax garanaya dan macallinkan in lagu dabagalo inuu waxbarashada gudbinayo inuu gudbinayo maxaa ka garanay natiijada ardaygan ka garanay daafurka waxbarashada aan program u qabano dadweynaha in la shiriyo weeye la doodsiyo dadku waxbarashada way rabaan laakiin in lagu baraarujiyo oo inuu soo jeedsano in waxan jiilkii mustaqbalka ummadeena mustaqbalkeeda xaq u jooga dhalinyaradii xaqay joogaan iskuuladii jaamacadaha joogaan dugsiga hoose iyo dugsiga sare bay joogaan iyo dugsiga dhexe marka mustaqbalkii ummadda waa waxbarashada weey sababtoo ah every field baa ka soo baxaya engineerka ka soo baxaya dhakhtarka ka soo baxaya ma garanaysaa macallinkii baa ka soo baxaya kii wax dhigayay maada kasta administratorkii madaxweynihii ra'iisul wasaare yaa dadkan ku jira Soomaa ummad walba mustaqbalkeeda haddaad garato waxa la yiri haddaad mustaqbalka ummadeed rabto inaad garato meesha uu u socdo dhalinyaradeeda oo ka eeg waxa weeyaan barnaamijkan jiilka waxbarashada heer deegaan waa laga daafuray
maantana heer gobol baan u fadhinaa degmooyinkana waxaa la rabaa iyaguna inay dah furaan baa la rabaa waxa weeyaan markii la ogaaday dhibaatada ka jirta waxbarashada ayaa waxaa la sameeyay barnaamijkan in kor loo qaado aqoonta ardayga markii la ogaaday ardaydeenu heerka ay marayso Itoobiya oo dhan ayaa barnaamijkan la sameeyay waxa loo baahan yahay marka inaynu kor u qaadno tayada ardayga ayaa loo baahan yahay in waxbarashada la isugu tago awood xoog lana la saaro ayaa loo baahan yahay si jiilka maanta joogana maskaxdooda loo kobciyo kuwa soo socdana loogu tababaro si ay wax u bartaan ayaa loo baahan yahay waxa weeyaan marka idinka waxa la idinka rabaa inaad marka tagtaanna barnaamijkan dah furtaan oo sidan oo kale bulshada iyo maamulka dhan ay dah furaan ayaa loo baahan yahay kulay waa barnaamij ka socda deegaanka oo dhan iyo Itoobiya oo dhan buu ka socdaa gobolada qaar baa dah furay inagu maanta aan u fadhinaa degmooyinkuna waa loo dhaadhicinayaa waa la dah furaya heer gobol heer degmo ilaa heer qabala loo dhaadhicinaya barnaamij